بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan waxaan salaamayaa marka hore ummadda islaamka, gaar ahaan waxaan salaamayaa mujtamac weynaha ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay adduunyada ku kala nool yihiin dal iyo dibadba. gaar ahaan waxaan rabaa inaan salaamo shacbi weynaha Jamhuuriyadda Somaliland meel kastoo ay kala joogaan adduunka dal iyo dibadba. waxaan rabaa anuun baa damqanaya dhaguhu uma daroolaan dadkaan la hadlayaa baan lahayn duxiye iimaan bal inay qalfoof tahay caqliga dooni laga saaray wixii hore u soo daashaday bay diyaarsho reentaa. waxaan la yaabanay shacabka Jamhuuriyadda Somaliland u dhashay waxa ka masaxay ee qalbigooda ka maydhay muwaadinimadii ama maxay ahaydey sharcigii Somaliland ilaalintiisii. maxay ahaydey qof wal oo muwaadina oo Somaliland raba inay tahay waajib saaran inuu sharciga dalkiisa maxay ahaydey dalku leeyahay inuu la dhowro oo la ilaaliyo oo wixii sharciga Somaliland baalmarsan ama khalad ku ah ama meel ka dhac ku ah ama gaf ku ah inaan hal shakhsi ama hal qof ama hal ruux aan loo jebin dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland ama sharciga Jamhuuriyadda Somaliland. sharciga Jamhuuriyadda Somaliland waa waxa ummadda dhan ee dalka ku wada nool isku haya. waa sharciga hadday madax tahay, hadday ganacsato tahay, hadday culimo tahay, hadday shacab tahay, hadday dumar tahay, hadday rag tahay, hadday dhalinyaro tahay, waxa qoliyaata ee ka dhexeeya waa dastuurka iyo sharciga Jamhuuriyadda Somaliland maxay ahayd u yaala. haddii sharcigii iyo dastuurkii uu noqdo wax uu qof leeyahay oo maalinba soo malmaluuqdo wuxuu doono oo waxaan sharcigu u banaynahayn maalin walba uu maqnaysaa iska ayido damco inuu tiisa maxay ay u socoto oo laga tallaabsado dastuurkii iyo sharcigii Jamhuuriyadda Somaliland qawaaniinta lama taabtaanka ah uu ahaa. waxa weeyaan Somaliland maxaa la iskaga daalinaya? Somaliland gebigeegiba hadday tahay wuxuu hal qof jeebada ku ridanayo oo si allaale siduu doono ma garanaysaa maxay ahaydey mowqifkiisa u marsanayo oo dadka ka dhaadhicinayo wax allaaliyo wixii ma garanaysaa caqligiisa ku soo dhaca. waa subxaanallah. horeynu u ogey in saddexda xisbi qaran ee waqtigooda gabaabsiga yahay ay qodob jab dastuuriya ay Somaliland ka sameeyeen iyagoo ku khaldaya shacabka Jamhuuriyadda Somaliland doorasho isa saara ayaa la gelaya oo maxay ahaydey aynu qabsanaynayo lagu luminayay maxay ahaydey furashadii xisbiyada qaran ee dastuurku fasaxayay ay maqnaysaa qawaaniinta Somaliland taala ay fasaxaysay. xisbiyada qaranka waxa loogu talagalay oo maqnaysaa ay haystaan sharciyan waqti 10 sano ah. waqtigoogu 10 sano ahaana dhowaan waxa weeyaan gabaabsigu ku dhaweeyay waqtigay dhacayeen ay gasbaayka noqonayeen xisbiyo timekoogu ka dhamaaday ay noqonayeen baa soo dhow. saddexdan xisbi ee maanta jira iyagoo taa ka cararaya ayay shacabkii uga dhigeen inay Somaliland iyo dalkaba u danaynayaan oo dantii dalka iyo qaranka ay maxay ahaydey meel uga soo wada jeedaan Somaliland danay leedahay ay fulinayaan iyagoo shacabku u qarinaya way doorasho isa saara galeen iyagoo ku fishanaya inaan xisbiyo qaran oo meeshan u soo baxa oo waddanka yimaada ama Somaliland lagaga dhawaaqa si aanay suuragal noqon. dadka iyo shacabka Jamhuuriyadda Somaliland way wada ogaayeen waxgaradkooda iyo aqoon-yahanadooda iyo ciddii dalka Somaliland mustaqbal iyo rajo kale siyaasadeed ee damacsan inay Somaliland maroon tilada Somaliland ay wax ku yeelato ama waddanka hore socodkiisa iyo horumarkiisa ay wadiiqada sharcigu u fasaxayo inay u soo maraan. markaa maanta waxaa jirta warkii horeba war soo dhaaf Faysal Cali Waraade ama xisbiga u cid gudoomiyaha haysta chairmanka ka ah sharciga Jamhuuriyadda Somaliland wuxuu u ogoliyay gudoomiye xisbi ama musharax xisbi inuu 2 teeram oo qoliyaata uu tartamo doorashada madaxweynenimo. haddii 2 teeram uu waayo inuu baneeyo jagada musharaxnimada madaxweynenimo u baneeyo dad kale oo chance u leh ama u tartami kara ama magaranaysaa maxay ahayd sharcigu u fasaxayo.
hadday hore u dhacday khalad faysal cali waraabe maxay hayday sharciga loogu tuntay oo dastuurka loo burburiyey oo 3 jeer oo hore doorasho madaxweynenimo ugu soo tartamay mar dheeraada khalad haddana maanta inuu yiraahdo sharciga jamhuuriyadda Soomaaliland aniga shakhsiyan la ii burburiyo oo mar afraad madaxweynenimo u tartamaya Soomaaliland maxaa loo asaasay ma faysal cali waraabe in lagu raali geliyo Soomaaliland loo dhisay ma waxa loo dhisay faysal cali waraabe in madaxa loogu buuxiyo Soomaaliland ma waxa dal looga dhigay inuu qof kaliya tariigiisa fikirkiisa oo shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ee malaayiinka qof in maxay ahayd hal qof sidoo doona maalin walba ka yeelo horeynu u ogeyn in dastuur jab dhacay oo 3 xusbi ay isku raaceen arrin khaldan maanta haddii shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ay isku raacaan arrinkaas sharci darrada ah ee la doonayo in la marsiiyo ee la doonayo in doorasho aan suuragal ahayn in lagu galo faysal cali waraabe ay sanayeen inuu shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland aanu damiir iyo dareen ay wax kaga jawaabi karaan inaanay u lahayn oo ay wax kaga hor iman karaan waa ma subxaanallah shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland maxay dalka kaga nooli ay Soomaaliland u sheegtaan qabiil iyo qabyaalad waxba ma tarto Soomaaliland sharcigeegiba gacmaha iyo magaranaysa baabacooyinka lagu qaadanay haddii maalin walba si allaale si la doono la yeelana beritoolana si allaale si la doonaaba shacabka magaranaysa cagta loo marin karaa meel allaale meel la doonaaba Soomaaliland magaranaysa maxay ahaydey lagu ridi karaa haddii aan sharciga dalka u yeelan la ilaalin Soomaaliland jiri mayso Soomaaliland cid allaale cidii ka damqanaysa waxaan u leenahay arrintaasi waa arrin khalad ah waa in shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland u sara kacaan sidii xisbiye qaran loo furi lahaa oo loogu diyaar garoobi lahaa haddii laynagu qalday doorashadii golaha deegaanka iyo xisbiyadu ku tartami jireen in laynagu bedelo xisbiyadu inay kusoo kala baxaan doorashada golaha guurtida xisbiyada cusub ee lagu dhawaaqaya inay ku tartamaan doorashada golaha guurtida oo golaha guurtidu inoo noqdo doorashadii ay xisbiye cusub oo waddankan iyo dalkan iyo dadkanba horumar gaarsiiya ay meesha uga soo bixi lahaayeen Soomaaliland waxay daashaday qof maalin walba dan allaaliyo dantiisa gaar ahaaneed sidoo doonay inuu fishanaya iskaga keen dhigayo muwaadin dalka iyo dadka la jecel ka qaba si allaaliyo sidoo doonaba maganaysa kiishadii soo buuxsanaya dastuurka Soomaaliland sidoo doono ugu tuma Soomaaliland waxay u baahan tahay qof niyad saafiya leh u baahan tahay waxay u baahan tahay muwaadin ididiile leh u baahan tahay waxay u baahan tahay muwaadin bilaa mushahar iyo bilaa maganaysa maxay ahaydey wuxuu dalkii soo qaban karaba aan dhaqaale siisanay horumarka dalkiisa dadkiisaba u sara kaca Soomaaliland waxay u baahan tahay muwaadin xaqiijiya in Soomaaliland ay noqoto dal jira dal caalamka maxay ahaydey la jaan qaada dal nimcada Ilaahay iyo barwaaqada dalkiisa Soomaaliland taala madax u soo saari kartay Soomaaliland u baahan uma baahnin madax khiyaali iyo propaganda iyo filin kartoon iyo inta sarcaad inuu sheekaysa arrintan aan maanta ka hadlayano waa arrinta faysal cali waraabe ku dhawaaqay ee wiil musharax baan ahay waa arrin aan suuragal ahayn dalkan kama dhacayso faysal cali waraabe in sidoo doono maalin walba shaqaanta ugu qabto anigu waxaan diyaar u ahay oo iga go'an inaan faysal cali waraabe maxkamadda la koro waayo xaq iyo dastuurka Soomaaliland iyo sharciga waddanka u yaala wixii ogoli in dalkayga dadkayga wixii maxay ahayd khalad ku ah inaan laamaha sharciga ah aanu maro faysal cali waraabe kama yeelayo in musharax noqdo sharcigii u baneynayay uu soo dhaafay sababtoo ah faysal cali waraabe dukaan leeyahay ma Soomaaliland makhaayadu isagu furtay maaha teeramkiisi 2 jeer bu sharcigu ogolaa mar saddexaad ba loo khaldamay oo si khalad ah u doorashada ku galay hadduu maanta in yiraahdo mar afraad baan galaya dastuurka Soomaaliland la baabiyo Soomaaliland ha noqoto makhaayad nin allaale ninkii doonaa sidoo doonaba shaqaanta ugu wareejinay madaxda dalka ugu sarreeyay maanta hoggaanka dalka ay soo waxaan u leenahay daahiriyaal kaay madaxweynaha dalka soo maray buu ahaa 2 teeran buu tartamay labadiisi teeran markuu dhamaystanay ugu baneeyay madaxweyne Siiraan 2 teeran buu tartamay labadiisi waqti markuu dhamaystay ugu baneeyay موسى بيحوح وبلن قاضي لو تيرم من شرع جوجلي لبدي ستيرم مركو لما يستنين وبلينيو دي شرع فيصل على الوراء أفر تير وقرانية ما شرع Soomaaliland ما يسقى سمايستي
dastuurka ma isagaa loo qoray sharciga somalilan qawaaniinta dalka iyo dadkaba u taalla ma waxa weeyaan wax faysal cali waraabe loo soo diyaariyeyba ma mustaqbalkii iyo noloshii shacabka jamhuuriyadda somalilan baa hal qof loo baabiinayaa oo fikirkiisa loogu raaligelinaya oo waxaan soconayn arrintaas waxaanu leenahay faysal cali waraabe arrintiisa yeeli mayno waan ka hor imaana annagoo wax walba dalkayaga iyo dadkayaga ugu dul qaadanayna iyadoo somalilan horumar la gaadhsiin karo wax loo qaban karo hantidii iyo maalkii wax loogu qaban laana ay dalka dhex yaalaan laakiinse ay somalilan maskax ay u baahan tahay waxay u baahan tahay maskax maxay ahaydee meel dheer ka fikiraysa shacabka somalilan shaqaabur waa loo samayn karaa maxay ahaydee dalka somalilan horumar waa lagu samayn karaa wadooyin waa la samayn karaa wax soo saar waa la samayn karaa tacab iyo horumar adduunka aynu kula jaan qaadno waa la samayn karaa laakiinse waxaa loo baahan yahay inuu hoggaanku inoo tooso madaxda dalka hogaaminaysa markay madax san inoo noqoto toosan oo dalka iyo dalkaba lexejeclo ka qabta ayuu waddanku hagaagi karaa taasna waxaa lagu heli karaa waa marka axsaab cusub oo waddankan saafiya loo furo oo arrintii xisbiyada somalilan ay ka hirgalaan oo meeshan ay timaado madax dalka iyo dadkaba ka fikiraysa madax maxay ahayd halka milyan ee dollar ku dawaqaysa ama boqolaalka kun ee dollar magaranaysaa dantii qaranka ku dhaafsanaysa oo magaranaysa sooranaya dhiisha maxay faqriga wada tuura nin tiisa gaar ahaaneed ka fikiraya dan qaran kama fikiri karo somalilan horumarkeyga kama maxay fikiri karo somalilan waxay u baahan tahay madax aan adduunka eegin ee eegta mustaqbalka dalkii dadka madax dadka horumar ku dhaqaajisa maalin walba waqtigu cidlo kaga lumaa intaasoo boqolaal kun oo qof oo dhallinyaro ah oo aqoon-yahan ah oo jaamacado ka soo baxay oo waqti walba qalin jebinaya ayaa maalin walba bilaa mustaqbal aan wax allaaliya wax loo diyaariyey aan jirin baa maalin walba cidlo ku dhacda dadkaasi waxay rabaan dhallinyarada qalin jebinaysa jaamacadaha ka soo baxaysa kala duwan rag iyo dumar habliyeynamaba leh waxay rabaan in loo sii jeexo markay waxbarashadooda soo dhammaystaan waxay qaban lahaayeen loo sii diyaariyo waayo gacmo wada jiri bay wax ku gooyaan baa leeyahay haddii arrin meel laga bilaabo dee maxaa ahayd dhammaystirkiisu waa mustaqbal iyo raja laga qabaa laakiinse cidba waxbay kusii biirsaa arrimaha dalka somalilan haddii lala rabo in horumar la gaadhsiiyo madaxda jaalaada ah ee magaranaysa wada andikaabka ah ee sharcigii somalilan ku tumanaysa ee kule 4 jeer baanu tartamaynaa sharcigii dastuurkii hala noo furo iyo somalilan keligay baa nabadeeda gacanta ku hayay somalilan anigoo quray magaranaysa wanaaggeegu iga faysal cali waraabe somalilan wanaaggeegii nabadeeda goormu ka shaqeeyay cagufaanka iyo cidlada waraabayaasha uga kacsanaya wax allaale iyo wuxuu dalka u qabtay ma jirto intaa joogay oo xisbiga hogaaminayna wuu ku shaqaysanayay wuxuu ahaa xafiis isaga oo furan oo ku dilaalayo oo magaranaysa maalin walba dantiisa meeshuu ka arko uu sida doono u fushanayay bay ahayd waxaanu leenahay faysal cali waraabe waa lagugu fahmay arrinkaagii filinkaagii soo dhammaada ama waala ama dawaq haddaad waalatana dee waxaa weeye cilaashadaa lagu geyn sababtoo arrintan aad u dakaa socon mayso dalkan sharci buu leeyahay sharcigaan kula tiigsan doonaa dastuurka somalilan kuma ogola inaad 4 jeer u tartanto doorashada waddanka somalilan ma adigoo qulaa faysal cali waraabe lagu aasaas ma guri aad leedayba ma maqaayad adiga ku furanba miyaan somalilan 5 milyan oo qof aanay u dhalan miyaan 5 milyan oo qof somalilan mustaqbal iyo nolol ka ribin miyaan 5 milyan oo qof somalilan inay ka taliso oo mid waliba wuxuu kusoo biirin karo uu diyaar aanay u ahayn 20 sannadood bad ummadu waqtiga iyo noloshiba ka lumiso oo aad soo taagantay halka dadka jaanis siin lahayd oo aad retire-nimadaada aad ayadii leedahay inaad retire noqotay hawlgab noqotay inaad tiraahdo 4 jeer baan tartamaya dee waxa weeyaan waa waali madaxda somalilan madax dhaqameedka aqoon-yahanada cid walba somalilan rajo ka qabtaba arrintaa hawsara kacdo wax ka qabato sababtoo arrintaas arrin soconaysa maaha arrin la ayidi kara ma aha arrin maskaxda fayow qaadan kartana maaha waadnimayo somalilan magaca iyo muuqeyga iyo sida ay dal ku noqon karto
waddadeeda ha loo dhaqaaqo. 30 sannadood baynu maanta halkaynu taaganay Somaliland wax isbedel oo loo oran karo waxaa madax lagu xasuusan karo ay samaysay qaar dhintay mooyaane inta nooli wax la taaban karo loo oran karo waxaa lagu tilmaaman karaa oo faraha lagu fiiqi karaa ma jirto. madaxdii dhimatay ee dalkan soo martay haddii Cabdiraxmaan Tuur iyo maxamed xaaji Ibrahim cigaal ay ahaayeen wax muuqday dalkan ka soo qabtay intii ka dambeysay waa dhiisha faqriga Tuurun ba ka socotay wadanka ilaa maantada dhiisha faqriga Tuurtiin ba socota mid kastaaba dan leeyahay inuu fishanaya war Somaliland dal jiraha ama ha laga dhigo oo loo wada diyaar garoobo ama ummadda khiyaaliga laga daayo. Somaliland hadday maalin walba saddexdii isfahantaa siday doonto ka yeelayso dal noqon mayso. ummaddan noloshoodii mustaqbalkooda in gabaahir cidla lagu baabiyo maaha ama waa in dalka iyo dadka noloshooda halkay ku samaanayso loo kiciya ama waa in dalka iyo dadka khiyaaliga laga daayay. haddii dastuurka Somaliland maalin walba shakhsi gaar yiraahdo aniga ha lay furo oo aniga tayda ha laygu socodsiiyo Somaliland wax sidaa ku soconaya maaha. horeynu u ogeyn ganacsato fara badan oo Somaliland u dhalatay in loo xidhay suuqyo u gaar ah hadday telefoonatay in loo xidhay oo Telesom loo xidhay oo Somtel loo xidhay hadday isgaarsiin kala tahay in loo xidhay shakhsiyaad gaar ah oo loo daayay oo wixii ganacsi loo oran jiray ba shakhsi gaar ah loo daayay oo magaranaysa koota loogu xidhay. noloshii ummadda oo dhan baa koota lagu wada xidhay. waxaa loo baahan nolosha ummadda in kootada laga wada furo madaxdii ka furi lahayd in la doorto dalkan inay xisbiya ka furtaan Somaliland madaxdii wax ka dhigi lahayd inay bannaanka u soo baxaan oo ay fikirkooga iyo ra'yigooga bannaanka keenaan oo shacabkan qulubtii qalbiga laga dilay la toosiyo. shacabka Somaliland way retire garoobeen noloshii waxaad moodaa inay caadi uga dhaceen sababtoo ah shacab sharcigoogii maalin walba lagu tumanayo sidii la doono laga yeelayo aan axba lahayn maaha shacab ma noqon karaan. war dalkan iyo dad iyo Somaliland rag baa naftooda u soo horay oo magaranaysa maxay cimrigooga u iibsaday qaar baa u naafoobay qaar baa u luga beelay qaar baa u indha beelay qaar baa xabaalo u galay maxay ugu dhimanayeen in dalkooga dadkooga isbedel helaan bay u dhimanayeen in ummadooda la jaanjaamiyo la naanaabiyo umay dhimanayeen. dhalinyarada dalkan soo maratay umay soo maranayn in dhalinyaradooda mustaqbalkee Somaliland u dhalatay inay shaqadaro ku noolaato umay dhimanayn waxay u dhimanayeen inay mustaqbal fiican dalkooga ka dhaxlaan inay noloshooda isbedel ay dhalinyarada Somaliland ay hesho inay gidaaradii darbiyada fadhiyaan 30 sannadood inay ka kacaan oo madax ka kicisa ay helaan in shaqo abuur loo sameeyo. war iskaa wuxuu qabso haddii dhalinyarada Somaliland lagu hawlgeliyo diyaar bay yihiin wadankooga tacab iyo xoog iyo maal iyo cilmiba waxay hayaan ay geliyeen. laakiin se waa maxay hormood bay rabaan madax bay rabaan hormood u noqoto oo wadada u jeexdo ay ku daydaan. laakiin se madax dalka xaalufi guryaha xaalufi hantida xaalufi war kuwii shalay tooro wadanka xaalifiyay ba wadanin ka buuxa oo wadanin ka soo nacnaclay kuwii shalay tooro sharci darrada baarlamaanka ku dhex fadhiyay ba wadanin xukumaya kuwii shalay tooro sharci darrada tartanka doorasho ku soo galiyay ba u cid haysta kuwii shalay tooro kitaabka quraanka u soo saarayay gacanta lahaa wadankan u soo halganay ee haddana dastuurkii Somaliland ku tumanayay ee sharci darradii keentay inaan axsaab qaran la furin oo doorashadii golaha deegaanka ee xisbiyada ay la furi lahaayeen ku tartami lahaayeen soo qiyaamay qaranka ilaa doorashada saaraan qabanna ayaa xukuumaya xisbi xaakimkii meesha runta la isku sheegaya ina biixi waa ku gafay qaranka Somaliland Faysal Ali Waraabi wuu ku gafay qaranka Somaliland Cirro wuu ku gafay saddexdaan in ee dastuurka iyo sharciga Somaliland ku gafay inay mar dambe shacabka Somaliland rajo ka naawulaan waa mid subxaanallah waa mid aan dhacay in dib loo doortaana waa mid aan dhacay meeshan Somaliland waxa looga baahan yahay in axsaab cusub xisbiyo cusub siyaasiyiin curdani ay dalkan soo baxaan Somalilandna malaayiin haliyay bay leedahay
intaasoo rag oo magaranaysaa iyo dumara oo somalilan horumar gaadhsiin kara baa u dhalatay oo dalka joogto dibadda joogta inay oodaha iyo maxay ahayday gidaarada iyo derbiyada kaga gudban siyaasadda laga hor qaado xaq bay u leeyihiin muwaadiniintu. muwaadinku maaha derbi cidlaa ah oo meel ku yaalla maaha. dhallinyaradan jaamacadaha ka soo baxaysa inay cilmigii aqoontay baratay dalkoogii dadkooga uga faa'iidaysaa bay rabaan. madaxdii ka hor kici lahayd ee jaaniska siin lahayd inay waddankooga u soo baxdaabay rabaan. maaha ummadda in la naanaabiyo la jaanjaamiyo oo magaranaysaa saddex nin ay u heshiiyaan danta qaranka iyo danta dalka iyo danta ummadda somalilan maaha. waayo ambiye maaha, faysal nebi maaha la soo diray, cabdiraxmaan cirana maaha rasuul la soo diray, muuse biixina rasuul la soo diray maaha. waa dad bila aadana in dastuurka somalilan ay ku tuntaan oo siday doonaan ay ka yeelaan oo wax allaaliyo waxa iyagu ay rabaan inaga dhaadhiciyaan oo inagu fishadaan waa waxaan soconay. waa wixii shalay toole raggiina la midi ka dagaalameen, ay duurka u galeen, ay qoryaha u qaateen, ay xabadda u rideen, ay naftooda u waayeen, ay u curyaameen, ay u indhabeeleen, ay u lugabeeleen. maantana tii haddii la banaysto oo dastuurkii somalilan si allaaliya sidii la doonaba loogu tunto oo aynu ku daawano oo aynu ku qosolno oo aynu ku faraxno dee inagaan caadi ahayn. maskaxdeennu waa inay waxa khaldan ka hor timaadaa. waxa khaladka laynu samaynayo dalkeenna iyo dadkeenna laga gelayo qof magaca iyo muuqaba inaba sheeganaya dalku hadduu inagu samaynayo maalin walba taa waa inaynu dastuurka iyo sharcigu wixii noo ogooliyo waddadeeda marnaa aynu ka hor nimaadnaa. anigu muwaadin baan ahay, waan ka hor imanayaa sharcigaa somalilan maxkamadan la koraya inu calwaraabe. wuxuu sharciguna kala siiyaa baanu kala qaadaynaa sababtoo ah dastuurka somalilan ma ogola inuu 4 jeer faysal calwaraabe igu soo noqnoqdo. mar baa loo khaldamo khalad uu ku tartamo, mar afraad sharciga somalilan ma ogola inuu tartan soo galo. gurigu ma aha dukaanku waddanku ma aha dukaan isagu leeyahay, maqaayadu isagu futay maaha. rag isaga la midaba shalay toole nafahooga waddankan soo waayay isaguna Finland iyo Yurub xabubkii tamaandhada iyo basasha ku cunay. rag isaga la midina duurkii ayday u soo seexdeen oo ay ku soo raamoobeen oo ay ku soo kacaakufeen. ma fahanti maanta inuu dhereg iyo dibira dhacsi waddanka somalilan magaranaysaa filin kartoon ula dhac yimaado dalka somalilan wixii shalay toole ragga la midka ay qoriga maxay dad soo ugu qaadeen ay naftooda ugu soo biimeeyeen ay ugu soo dagaalameen inuu faysal maanta magaranaysaa inaga toocsado maaha. waxaanu leenahay somalilan sidan ku socon mayso. somalilan maaha makhaayad lagu ciyaari karo, maaha hodheel nin futay maaha, dukaan maaha si allaale sidii la doono ama alaab dhacday lagu iibinayo ama alaab expire kulba la keenayo shacabka somalilan laga socodsiinayo. shacabka hadday qayb hurido ragaan yeelayn baa dhex jooga dalka adeer. dad damiirkoogu nooliyey baa jira, maskaxdoodu nooshay, muwaadinimadoodu nooshay, dalkooga dadkoogaba iyo dalkoogaba rajo ka qabaan. waxaanu leenahay sharciga somalilan in lagu tunto maaha. madaxda ku tumanaysa madax baa anigu uma aydsani saddexda xusbi ee waddanka khiyaamay. 3 xusbi qaran inaanay ahayn baan aaminsanaya. sababtoo waa doorasho isa saara ayay shacabka somalilan uga dhigeen inay somalilan wanaaggeedii ka talinayaan. danahooga siyaasadeed bay isku saareen doorashadii isa saarka ahayd iyagoo ku lunsanaya inaan waddanka xisbiyo cusub aanay iman. laakiinse waxaanu leenahay haddaad nagu khiyaanteen taa wuxuu sharciga somalilan noo fasaxayaa haddaanu muwaadiniintii somalilan u dhalatay nahay. haddii doorashadii golaha deegaanka xisbiyada kusoo tartami lahaa kusoo kala bixi lahaayeen la waayey in doorashadii lagu bedelo doorashada golaha guurtida oo doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ay kasoo horeyso doorashada golaha guurtida si xisbiyo cusub waddanka ugu soo baxaan tartankuna uu halkaa ka bilaabmo. 82 xildhibaan ee u tartamaya golaha guurtida waa in xisbiyada cusub ee la furayo sharciga somalilan dhigayo in lagu dhawaaqo oo la furo oo lagu tartamo waa in doorashada golaha guurtida xisbiyada kusoo kala baxaan. waa in madax fayo oo musuqmaasuq ka fayo waddankan soo baxda. waa in madax caadifad qabiil iyo qabyaalad ka fayo waddankan soo baxda.
وإن مدح مستقبل كسومالان يرتشد سومالان ينرش سومالان ينرش مستقبل على يرد سومالان مدح خف بكرة سوينا وقتك أنت ماتا nin maalin walba dollar aan hore u arag dawaqinaya oo boorsan maran ku guraya bahasha ku guraya gooranayo oo odhanayo shantaasna markay ku dhamaataan iskaga dego ama Finland ku noolow ama Scandinavian-ka deg ama Imaaraadka guri weyn ka jeexo dalkii dadkan bay hoofinaya dalkan dan uma aha Somaliland nolosheeda iyo mustaqbalkeeda Somaliland ma aha inay guri dumdumaan noqotay Somaliland waxay u baahan tahay inay ilaahay wax war oo wax lagu qaban karaba oo dhex dhigay Somaliland nimco way dhex taala dheeman baad dhex taala badaheegay ku jirtaa barigeegay taala waxay u baahan tahay muwaadiniin dalka iyo dalkaba u guntada oo walaalo ilaahay u noqda oo dalka qaranku ay kaga weynaato taqabiile iyo taqoys iyo taqolo ee maqanaysa qabiiladeed oo Somaliland shacabkeegu isku mid u noqda oo dhalinyarada Somaliland isku mid ay u tahay meel walba ha joogaan Somaliland dadka u dhashay dad ay ka wada go'antay in ay isku midna ay yihiin horumarka dalkooguna mid u yahay ay Somaliland u baahan tahay in gacmaha isku qabsadaan oo ay ka soo baxaan goboladan lagu wada xayndaabay ee midba gobol ay wada dhex yururaan danta qaranka dad ka fikiraya waa inay banaanka yimaadaan sharciga lagu tumanaya ka hor yimaadaan Somaliland waa inay dal jira ka dhignaa ama iska xidhnaa albaabada iyo daaqadaha calanka Somaliland haddaynan calan jira aynaan ka dhigayn waddanka Somaliland haddii aan lala doonahayn inuu dal jira oo adduunyada ka mid noqdo aanu ahayn waa inaan waqtiga iyo noloshaba la iskaga lumin la iska laalaaba calanka oo dib aynu boorka uga tumanaa Soomaali weynteennii aynu shalay toolaba ku yaacaynay waayo ummadda ma ahayn waqtiga laga ridaaday ama waa in Somaliland si toos ah wax looga dhigaa ama dadka khiyaaliga timeka iyo cimriga lagaga ciyaaray nolosha laga baadilayo looga daayaa khiyaaliga waxaanu leenahay sharciga Somaliland ha loo sinaado ha la dhowro madaxda ku tumanaysana ha laga hor yimaado nin walba wixii dalkaaga iyo dadkaagaba kala gudboon xaq baad u leedahay inaad ka hadasho sharci darrada dalka ka socota inaad ka hadasho xaq baad u leedahay madaxdeenu inaynu la xisaabtano war wasiirku in la xisaabtamo xaq baa loo leeyahay oo la xisaabiyo wuxuu qabtay oo wasaaraddiisa soo saarto iyo wuxuu khasaariyo wuxuu faa'iideeyo madaxweynuhu in muwaadinku la xisaabtamo sharciga dalka u yaala u fasaxaya muxuu madaxweynuhu soo kordhiyay sanadkii walba in la weydiiyo xaq baa loo leeyahay musharaxiinta ragga xisbiyada matalaya dalka maxay ku soo biiriyeen in la weydiiyo xaq baa loo leeyahay taymku sharcigu ogolaan ninkaasi meesha soo sharaxay haa inuu baneeyada xaq baa loogu leeyahay inuu mar walba ku soo noqnoqdo dadka uu yiraahdo maanta aniga musharax madaxweynaha maanta ma yaa dadka jaan waxay ma jeelkii waalida lagu jiraa ma dadku dad miir qaba oo maankooga iyo caqligooga fiyo yahay meesha dastuur iyo sharci Somaliland iyo qawaaniin waddanka kala hagaysa miyaan oolin sharciga Somaliland ma miskiinka ba Somaliland uu sharci u yahay mise qofku xoolaha haysta sharciga miyaan qabanin kamaalka haysta miyaan qabanin ka madaxda miyaan sharciga qabanin baarlamaanka cusub waxaanu leenahay qawaaniinta sharciga iyo qodobada sharciga iyo madaxda jabinaysaba idinka shacabka Somaliland ku metelaya shuruucdii dalka dad baarlamaankii la doortay aatiini wax allaale wixii maxay ahayd sharciga Somaliland jabinayay inaad ka hadashaan oo aydan dana qabiil iyo qabyaalad iyo qolo aydan uga fadhiisan dan qarannimo aad ka hadashaan shacabku waa wixii ni doortay fadhiga ka kacaan leenahay baarlamaanka haddaad wax ka qaban weydaan wixii sharciga duminaya هذا الوحوية نوتشوجي ميسان مشي لقحبان إنه يسوع صارين كنا وحويا دين أنا وحلا له وحنا نقول في لين يبان تشرين دين برلمان نقول مثله دين الدستوري وما وين الشعب كوش قيسان وحلا يدور وين واجب كيف جودته وين مدح ذا كل مية أفرتاس النضال ذي تلك عيستين وحي قبتين هنتدي تلك السوق شيء سومالا ماشي مرتين Somaliland على $1 على $100 على $100 وسعر والبوحي هنتي ما لا يسوى صارتي Somaliland أي لا يوان لو حسابية وإن شرع Somaliland شقية
وإن هنتدا قرنك أن أود مدحنما aan lagu fishin war maalin walba hadaynu kii naga tagayaa malaayiin dollar wadanka kala tago si faaruqiya dalkiyo dadka mataxadka looga tagayay gigicila oo abaarada la doonaya in laga cararo muddo wixii loo badbaadiyo hantideedan la iska wada guranaya loo badbaadiyo dalkan xaalufinaya la badbaadiyo siyaasadan xaalufinaya la badbaadiyo dastuurkan lagu tumanaya la badbaadiyo Somaliland أما طاعتها لون نقطة أما بواكتي ده لسك الله والسلام عليكم ورحمة الله